السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Soomaaliya bisha barakaysan oo Ramadaan ilaahay acmaal fiican oo ilaahay ralli ka yahay inaan camal falno anaha lagu duwo oo noo fuudeeyo dambigeena iyo kiiwaalkina Allah dhaafo cibaadana Allah naga aqbalo intaas waa Ramadaankii. Waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka ciwaankiisa meesha ku qoran yahay oo ah raacida rasuulka iyo mu'miniinta waa waajib. qodobkaas oo u soo qaabaystay 4 qodob oo yaryar ayaa raba inaan ka hadlo. wuxuuna daba socdaa qodobkeenu suuqeen dambeeyay bil ka hor oo ahaa kooxda calraage quraanka ma rumaysan yihiin. aayadihii marka ka haray raacida rasuulka inay waajib tahay oo waqtigu noo masaabixi waayey ayaan rabaa ayagiina inaan meesha ku sheego 3 qodob oo kalena ku daro. qodobka koowaad marka waxaa weeye raacida rasuulka iyo mu'miniintu inay waajib tahay baan sheegin. qodobka labaad saxaabada oo la caayo waxay diintu ka qabtana waan sheegin. qodobka saddexaad wixii gaaloobay oo ibliis ugu horeeyo iyo gaalnimadii waxay ka dhaxleen oo cirib dambeedkeedii waxay noqotay. qodobka afraad ugu dambeeya oo ah inay soo bateen waayahan dad hawadooda inay caabudaan dhaqan ka dhigtay. marka qodobka afraadna waxaa weeye qolada hawadooda caabudo ilaah ka dhigtay. 4 qodob baan ka hadlin. qodobka ugu horeeya bilaabaya marka qaala tacaala man yudici rasuula faqad ataaca allah. oo macnaheedu yahay qofkii rasuulka warkiisa maqlo adeeco raaca waxaa weeye qof ilaahay adeecay oo rabbi warkiisii maqlay oo kala weyn. man yudici rasuula faqad ataaca allah. qofkii rasuulka adeeca oo warkiisa yeela wuxuu yeelay ilaah warkiisii buu yeelay. sababtu rasuulka ilaah baa soo dirsaday asagu wakiil ka yahay. aayadda labaad qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum lima yuxyiikum. dadkii iimaan laga helayo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii xaqa rumeeyeyo istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum. haddii rabbi iyo rasuul idin yeeraan oo wax adinka idin anfacahaya oo idin nooleynahaya ay idinkugu yeeraan ajiibu warkooda maqal. rabbi iyo rasuulna wax kale kama yimaadaanba waxaa ka yimaada wax alla wixii khayr ahaa oo ku anfacaya adduunya aakhira inay kuu sheegaan. wax alla wixii shar ahaa oo aakhiri adduun wax kuu dhim inay kaaga digaan. waka aayadda 3 qaala tacaala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين هدك تونادان ديار قروقودا هقاتان هاوغادان آد هاوقفل جغنادان كوة رسولك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره رسولك أمر كيسا كوة خلافة هدك تونادان maxay ka digtoonaanayaan an tusiibahum fitnatun inay fitna ku dhacdo asiibto. fitnadaas culummadu waxay ku tafsiireen fitnadaasu macnaheedu gaalnimo wey
oo rasuulka qofku markuu khilaafo inuu gaaloobo baa ka soo dhalanaya oo gaalnimay dhalaysaa. marka fidnadaasu culummadu waxay ku tafsiireen waa gaalnimo baa qofkaas asiibeysa ku dhacaysa wey. marka waa hagaaloobinimo wey, gaalaha isku noqonina wey. aw yusiibahum cadaabun aliim, ama inuu ku dhaco cadaab, inuu haleelo qofkaas rasuulka warkiisa khilaafayo. cadaabkaasoo culummadu laba u kala qaybiyaan, adduunkana in lagu cadaabo, aakharana lagu cadaabo, oo adduunka cadaab yar la cadaabo, aakharana kii weynaa iyo naaru jahanaba la geliyo. marka khilaafka rasuulka la khilaafana waa kaas. falyaxdir aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim. aayadda afraad qaala tacaala waman yushaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic kayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira. waman yushaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda, qofkii rasuulka feer orda oo feer jeexa oo ka leexda waddadii rasuulka wadda ahayn dhinac mara, la dhinactama, challenge ku sameeya rasuulka. waman yushaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda, marka loo cadeeyo rasuulka u cadeeyo hanuunkii waddada xaqa iyo badilka u kala cadeeyo. oo wayatabic kayra sabiili lmu'miniina, mu'miniinta waddadooda keyrkeed raaca, macnaha waddada mu'miniintu ku socdaan waddo aan ahayn oo kasoo horjeeda raaca. nuwallihi maa tawallaa, ciddii kale ou raaco oo ka weli yeesho ayaa weli uga dhigaynaa. wanuslihi jahannam, naarta jahannam waa gelinaynaa. wasaa'at masiira, meel la ahaadoo loo dambeeyana oo qof u dambeeyo oo ku dambeeyana jahannama ugu xun wey. waman yushaqiqi rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic kayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira. aayaddan ugu dambaysa qaybta dambe maxaa ku jira? wayatabic kayra sabiili lmu'miniina. ciwaankeenana maxaa ka mid ahaa? rasuulka, raacidda rasuulka iyo mu'miniinta waa waajib. culummadu aayaddan waxay ku tafsiiraan mu'miniinta laga hadlayo waa salafkii hore wey, waa saxaabadii, waa taabicigii, taabiciyiintii, taabicigii, waa ummaddan 300 sano u horreysay iyo wixii ku sixiyey. saxaabadii nebiga la noolay sala allahu calayhi wasalam, wax alla wixii qur-aan ah, wixii mataqaanaa sunno ah ka qaatay oo soo gudbiyey in warkooda la raaco waa waajib wey. ilan adigu nebi maxamed ma arkin sala allahu calayhi wasalam, qur-aan adiga dushaada kugumu akrin, qur-aan ii dhegeysa adiga kumuu dhihinin, oo aniga igu dul akhri kugumu dhihin, umaad dhege macnaa inta ku dul akhrisay kaamuu dhegeysan. nebigu adiga qur-aan kuguma dul akrin, sunno nebi adigu mataqaan kumuu sheegin adoo hortaaga. laakiin abubakar iyo cumar iyo cismaan iyo cali radiallahu canhum iyo wixii kaloo saxaaba oo nebiga arkay oo la dhaqmay oo qur-aanka dushooda ku akhriyay oo sunnada dushooda ku akhriyay oo asaga wax baray iyo taabiciinta ayaa ka qaatay oo usoo gudbiyeen ilaa maanta aan joogno. saas loo kala dhexlayay dadkaas salafka in waddoodii la raaco oo saxaabada ugu horeyso waa waajib. qolada marka hadda feer dilacsanaysa oo dhahaysa annagu saxaabo warkeed kuma jirno, war abubakar iyo cumar iyo cismaan iyo caliya kuma jirno, annaga mataqaanaa waxaarna mataqaanaa diinta waxaarnaan ka fahmaynaayo, nebigaan toos ula xiriiraynaa. oo haddana nebiga inta kasii boodo haddana inkaro diida haddana dhahayo qur-aankaan toos ula xiriiraynaa. adiga ilaahna kulama hadlin, waxyiina kuuma soo dirin, maxaan ku rahdaa nebina adiga kulama hadlin, mana ada arkin. waxaad ka qaadanaysaa qur-aanka iyo sunnaha waxa wey waa saxaabadii iyo taabiciyiintii iyo taabicii ilaa culummada hadda joogta oo rabbaaniyiinta oo kuwaas waddooday ku socda.
قولك كو انت سكيو قد بايا قولك اللبات وصحابة إلا عاية قال تعالى محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يعجبك الزراع ليغيظ بهم الكفار وعنص على ليغيظ بهم الكفار. آيات إمام مالك وحكو تفسيري إلهي صحابة وحصاص وقود قاليه أو سي صبول بحي وما تقانا قروح بناضي مريه كاني ساسو كان أو شرح يا وحوي وإلهي صا إيمان كودي يقول سي أخلاق مودي وشدد لقاها وحيتها ليغيظ بهم الكفار قالوا إن الوقع عريسيو وقالوا كعرونا إمام مالك مركب وحليه هاي qofkii saxaabada u carooda waa gaal bulay diinta waa ka baxay aayadan lagu dilishay sababtu ilaahay wuxuu saxaabada saa u dhaqaaleeyay inay gaal ka carooto marka hadaad ka carooto saxaabada ama caydo ama booskoodii boos aan dhigto ama xamato ama xaqirto ama hoos u dhigto meeqaamkoodii iyo martabadoodii imaam malik aayadaas wuxuu ku tafsiiray qofka inuu gaal yahay diintan ka baxay islaamin uu sheegan karin. وأيها وحاكوسو بدنايا مسلمين خاصة الصوماليين وحاكوسو بدنايا دad عاية هي صحابة أبو بكر عاية هي عمر عاية هي عائشة عاية هي رضي الله عنه. هاي سكتشرا مركها وقالان هذا أبو بكر عايدو أو عمر عايدو أو عائشة عايدو دينك عنك وجر تماي إسلامي ما أتشاغانيسو أو ماشا أتكو هايسانا ماله. وحان دقيستي نينك اللي يراهدو عبد القادر كشك نيكا كندا جوغ كوحد على الراقي نيكا كترسان. وحان كدقيستي نينك اللي يراهدو عبد القادر كشك أو كندا كنور أو كوحد على الراقي أصوى راها يا النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة 9 سنة كمبورسن أو لسورة قال ما لحية 8 waxa ka weyn meelaas inay jirtaan laga yaabo. Horta Soomaali ugu horeeyay oo arrintan ka hadla dabcan Cali Raage iyo mataqaana Cabdi Saciidna waa ku raacsan oo nimanka waa isku group waa isku fikir waa isku ayagoo dhan mataqaana isku meel baa laga xukumaa. Waxa ka horeysay oo anu goobjoog ka ahaa sanadkii 2000 waa 17 sano ka hor oo waliba inay ahayd bilowgii 2000 baan u maleeyaa qiyaasteeda ومدة 17 سنة عن كيارين دانا كبالي مقالة لندن نورث لندن فينسبري باك مساجد اللي يراهو وحلقوه ديي شيخ شريف عبد النور oo markaas inuu Soomaali joogo inuu Caraba joogo ana kala garanay ayaa waxa li Soomaali waxa ka soo baxay 2 nin iyo gabar oo oranahaya nabigu 9 sano Aisha kuma guursan arintaasna xadiiskaas ma jiro. marka sheekhu maxaad ka leedahay sheekh Sharif Cabdul wuxuu yiri xadiisku waa saxiix cidii hadlaysa iska hadasho adinku xadiiska qabsado culimada muslimiinta oo dhan oo xadiis ku taqaasana saaso sheekh Sharif Cabdul oo kale xadiiska waa saxiix inagu 9 sano ku guursaday 6 sano ku mehersaday oo ku doonay 9 sano ku guursaday oo la aqal galay. waxa weeye marka Abdul Qadir Kishka iyo kooxda Cali Raage waxaanu leenahay xadiiskaas waa saxiix inaad marka ka joogtaan baa la idin qaataa. waxaan kaloo dhageystay ilaa 4 hadal ama 3 hadal waraan ka dhageystay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo iimaanka masaajid ku yaala Minneapolis Minnesota gobolkan mataqaan America ku yaala Minnesota State magaalada Minneapolis waxaan ka soo qaatay 3 qodob hadalkiisa.
wuxuu leeyahay qodobka koowaad abubakar markuu nebigu dhintay khilaafada ma lahayna cali baa iska lahaa wuxuu kaloo difaacayaa kooxda cali raage waa qodobka labaad qodobka saddexaad wuxuu difaacayaa maandoon website-ka la baxay oo ay cali raage iyo ku xiran yihiin groupkiisa iyo cabdisaciid iyo mataqaan ninka la dhaho cabdulqaadir kishk waxaan leeyahay marka anoo aada ku ixtiraamaya sheekh cabdiraxmaan shariifow saddexdaas qodoba inaad ka noqoto ayaa aniga aada iyo aada iila quman aada iyo aadna aan kaaga codsanaya saddexda qodoba waa qodobo waaweyn oo dembi ah diinta islaamka dembi ku awey inuu abubakar khaliifada iska lahaa nabigu markuu sal allahu alayhi wasalam diinta islaamku waa sheegaysaa saxaabadu waa ka marqaati kacayaan taabicigu waa sheegayaan culummado dhan waa sheegaysaa haddii la yiraahdo marka ha loo raadiyo daliil inuu abubakar khilaafada iska lahaa oo cali baa lahaaya asaga qolaa mataqaan u dhacday waxay la macno tahay qoraxda oo 4 saac duhurkii in la yiraahdo qorax inay tahay marqaati ha loo raadiyo qoraxdii qof biniisa ku arkay inay 4 saac duhurkii 4 saac barqadii joogto qofka ku dhaha marqaati ha loo raadiyo qoraxdan inay qorax tahay waxaa la mid qofka ku dhaha abubakar khilaafada ma lahayna cali baa iska lahaa ama qof kala lahaa marka umuna aishana xadiiskeeda waa saxiix sida sheekh sharaf cabduuri culimadaas xadiis ku taqasay sheegayaan midda abubakarna waa wax sida qoraxda loo yaqaano intaasna waxaan ka gudbo qodobkii labaad oo ahaa saxaabada caayitaankooda qodobka saddexaad waxa weeye waa dadka ilaahay amarkiisa diida ama jin iyo insi ha ahaadeen labadoo la isku daray waxaan ka bilaabaynaa ibliis waxaan ku xujinaynaa yuhuudda waxaan kusii xujinaynaa fircoon waxaan ugu dabamaraynaa abujahl fircoon waxaa leeyahay ibliis ilaahay markuu nebi aadan abuuray oo yiri malaa'igta ha loo sujuudo ibliis meeshuu joogay malaa'igtana ka mid maahay meesha wuu joogay laakiin asaga macnaha abuuritaankiisa malaa'igta ku abuurid maahayn nebi aadanna ku abuurid maahayn oo malaa'igta nuur baa ilaahay ka abuuray asaga ibliisa ilaahay dab buu ka abuuray nebi aadan ilaahay dhoob buu ka abuuray marka meeshuu joogay laakiin asagu laysa min almalaa'ika malaa'igta asagoo ka mid maahayn ninkaas amarkuna waa khuseeyey malaa'igta sujuud haddii la yiri nebi aadan u sujuuda asagana amarku waa ku dhacay isagaba addoon ilaahay abuurto meesha joogu ah ilaahay markuu yiri mataqaanaa nebi aadan u sujuud maxaad markuu nebi aadan malaa'igta u sujuuday asaga waa sujuudi waay ilaahay markuu weydiiyey maxaa nebi aadan ugu sujuudi weyday wuxuu ku jawaabay anaa ka fiican waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu yiri waad ii lafa jabinaysaa waad xaqiraysaa aniga waa qodobka labaad saddex waa dhaarto wuxuu yiri wax alla wuxuu dhalo waan mataqaanaa anay soo raacaya naarta ila gelaya waa duufsanaya waa dacaynaya waa kaxaysanaya gebigooda waxaad ka soo bilowdaa markaa suuratul baqara ilaahay arrintaa uga hadlahayo markuu diiday amarkaas ilaahay u siiyey ibliis sujuudi nebi aadan markuu diiday ilaahay suuratul baqara wuu kaga hadlaya wuxuu kaga hadlayaa suuratu caraf waa labo wuxuu ilaahay kaga hadlahayaa xijri alif lam ra rubama yuudu ladiina suuradda ka bilaabtay wuxuu ilaahay kaga hadlahayaa waa saddex suuradda afraad ilaahay kaga hadlaya waxa weeye isra suuratu isra ilaahay waa kaga hadlaya arrintaas afar ilaahay wuxuu kaga hadlayaa suuratu kahf shan ilaahay wuxuu kaga hadlahayaa suuradda la yiraahdo daha suuradda toddobaad oo ugu dambaysa waa suuratu saad marka ilaahay wuxuu kusoo gebagabeeyey su-aashii ilaahay uu weydiiyey maxaad u sujuudi weyday ibliisow oo kasoo bilaabatay baqara
waxay ku soo dhamaatay suuratu Saad dhamaadkeeda qaala tacaala falxaqu walxaqa aqul laamlianna jahannama minka wa man tabicaka ajmaciin adiga iyo wixii idinku raacaba naarta jahannamo inaad gelaysaan baa ilaahay uu ku xukumay amar diidadii marka ibliis halkaasay noqotay waxaa weeye marka ninkan ibliis ah iyo wixii raaca halkaas jahannama u dambaysa marka amar diidada ilaahay waxaa laga qaadaa naaru jahannam cirib dambeedkadu naaru jahannam ay noqotaa nebi aadan buu ku bilaabay arsigii wuxuu ku yiri nebi aadanow ma ku tusaa geed haddaa cunto weligaa aadan dhimanayn weligaana boqor ahaanayso nebi aadan geedkaas cun buy haddaad geedkaas cunto waxaad noqonaysaa weligaa dhimi mayso weligaana boqor ba ahaanaysa arrintaas waa been wey nebi aadan marka xaggee laga soo galay waxaa laga soo galay wax asaga u sawirahayo ibliis oo uu kaga dhigahayo inuu wax qiimo weyn asaga u kordhinayaan oo dan iyo maslaxad asaga gaar ugu jirto nebi aadan nebi aadanna marka waa ilaawey ninkan inuu cadowgiisa ah ilaahayna waa u sheego wuxuu yidhi nebi aadan iyo xawaa wuxuu ku yidhi ibliis waa cadowgiina iska ilaaliyo horaa arrintaas loogu sheegay haddaba waa ilaawey aadam waa ilaawey arrintii iyadaa ilaahay u sheegay oo inuu ibliis cadow yahay wuu hilmaamay hilmaankaasu marka ilaa hadda annagiina waana daba socdaa oo bani aadamka ahaa oo carruurta nebi aadan aha oo mar walba ibliis inuu cadow leeyahay waa iska ilownaa gaalnimada iyo wax alla waxa dembigoo la galahayo waxaa daliil u ah ama meelaha uu kasoo galayo waxa wey waa la hilmaamaya ninkan waa la iska hilmaamaya إله مرك عندك هذا المعور قال تعالى وعاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إلى يوحي النبي آدم وحان كربا لنا إنه إبليس إسكيل عليه عدو بيسيحي لكن وهي المام وكا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قوان قال شأرك كمان هلين أو أرنتها أشياء أو كوات كي إبليس أدي حاس كيوصل جناد إنكسار عدو بدين هاي وهي إسكيل المامي تيبا إلى هذا الدواسع تمرك بن آدم marka ninka ibliisa iyo wixii raaca naarta jahannam galaya ayaga oo naarta jooga fiir marka oo wada hadlahay qaala ta'ala ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون نار تكون جيران إبليس يوحو دمي أو بني آدم كه بني آدم كيو نارتي مركو لدح قالوا وحو ليهي بلايا الله كوكونا برك الله كوكو دفتان قرح كصباح إيا قرح ودع محا أني أدينه نوكا لجيوان محا إيكا كان إبليسو أني شيطان كذا ودين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إن مركا إسهارانتان ومدبمد أو هبارو وحبا إذا أنفع الميسو نارتي قيدة كترتان ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وحاوي نارتا مركي لوgu jiro waxay ka duwan tahay dhaqanka adduunka hadii guriga dab qabsado ama baabuur adoo hay waasaan u ka damo baabuurti kale oo ficnaa iska soconaysa kaliya meeshii iska fadhinaya qoladii baabuur sameeyay u yeeranay hadii guri kaliya ka gubto dhibku kaliya way laakiin hadii bildin badan gubto 200 qof degan tahay xoogaa waxa laga yaabaa maadaama qasaaro 190 qof kula qaybsanayaan
إن حوجا قلبي كوكا وترى محاط أبو لا عبانيسا أو لا عباديسا بقول يسألشن يسأل قف باكولا قف تدبك هدي جروك هجوتي أو ألعاب كابا ولا عك هجوتي ذكر وهجوت لكن هدي كل جا جروك جاي بابوك هاي ويكرافرس كل جا بدو كوكا وياي ولول كمرك وكبدني هاي مرك يبكي ولو ذاو مركو كل جا بحيث وكبدني مرك آخر ويكدو وانتهى عذابك مرك يلا قال إبليس كنا عذاب سائد مع عذابنا بني آدم كي وضوف صدام عذاب ترتيب أو خفيفة مع عذابنا واسكمي عذابك إلهي وإبليس عذابها يو أما حنون كنارت أوهاي بني آدم كا نارت كولتشر إبليس شيء حنون تشينس إبليس أو كلام حنون تشينسا مركب وحبك عن فعل ما يسوي إن الظلم ورنتو إن المنطقة نارت كولتشر وحبك عن فعل ما يسوي وسيد أدونك أذكرها حسن جرتين مركب يبكي الغلقة حاجة ما جرته marka ninkaanu halkaas naarta inaad kula muranto iyo inaad halkaas tiraado naarta asaga ilaahu u adkee aniga iga qafiif laga yeeli maayo waxa weeye marka ninkaas hal iska ilaaliyo qodobka labaad yuhuudu dhow qodob ilaahay ku haystaa horta waxay aaminsan yihiin yuhuudu إن هرتا مركب الانترناسيون نقولي أو الحسابين أو قيام التربية بأمسيين وحكروا أمسيين لوضع عبد ترى ولوضع إله كنيتان وقول كلام الله هيست قولك صدحات رسول الله صدره وأنا دري ترى وأنا عاي ترى قول بعض صار الله هيست يجينا مركب إلهي محو قصة راضي نبي إسكدرين سي صورة بقرة كشلا كاينيسو نيمبا جري مال قبينها ويلو اديرو اهي عرور ما لهين marka asagu gablan buu ahaa wiilo adeeru yahay ayaa qarabo u dhawaa wiilkiiba odaygu wuxuu iska dad u dhintay soo lacagta u dhaxlo iyo maalkan faraha badan taajirka odaygu waa dhiman waayay wiilkii odaygii buu dilay adeerkiisa reer kale yuhuud buu ku aasay gurigooda hortoodii marka wuxuu rabaa inuu maalkiisa ka qaato subaxdiina asaga qaradii kale intay beeshii tagaan bay waxa dhahay nin baa nala ka dilay ciidan baa naga dishay isaga aasay baa wax ka sheeganaya oo dilay buulay adeerkay waa la dilay ciidan baa dishay halka midkii ka haday waa in markii la siiyay marka wuxuu rabaa adeerkii inuu marka qaato ciidan kale yuhuud ah xoolihiisina soo dhaxlo raba labaas lacag isku darsado raba oo maalka labadii qabiil dagaal bay isku istaageen kadib waxay inay Muuse noo joogeen inay Muuse u tagno si loo kala saaro نبي موسى لو تجي أهمته وشاكتان وحيد نبى جورج الله جهل أكتيس حالك وأصلا نين كان بعشاقان ولا يروي يقول لي سي أنا ونين كمان الدين وبريبا كانوا حلوك موبي سوا ماشي قاسم عارف نبي موسى إلى وحي يقول وحالي وحكتر هذا ناف لو قورع حالك نورا كبر هذا ناف أنت تجا ناف وصهر هذه قورع إلى هاي أهمت وصار ما لها ما يصير نبي موسى كسوة واحدة ناف كنوشة وقرأنا أنا مد وير مية مد أنا يرام مية واللوجو شوال هذا نوع صنقين مير كيسي كلر كيس نوشة هذا نوع اللوجو شوال هذا نوع صنقين ميد بيرفع المية مسمينا بيرفع واللوجو شوال مرك قدام يسوي حاجة إن شاء الله إلهي مرك نوجه النهاية مرك إلهي كهن النهاية مرك سعي محمود قضي جمر عرور أوانا هيسته أو فخرة أيالي وايس هيسنا ساعة جنب تلمات النوشة ونيموس النوشة يقولوا وأنا ساعة ناقدة هذيك الوسائل لما قبل وصلنا يوسكوا بعيا waxay ku tiri maqaarkiisa oo dahab saca markii la qowraco maqaarka marka laga bixiyo maqaarkiisa dahab u baahan tahay siinaysan saciyo kaas hadii kalan ordas ka tag sidii maqaarkiisa oo dahab ka qaata gabadhaas ka taajirtay marka amar diido ilaahay yuuna intaas ka qaaday waxaan u gudbaynaa fir'aun ilaahay mu shaak qala ta'ala fastakhafa qawmuhu fa'ada'uhu innahu fastakhafa qawmuhu fa'ada'uhu إنهم كانوا قوما فاسقين ونادى فرعون في قومه ونادى فرعون في قومه ونادى فرعون في قومه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ألم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ألم قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه سورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فانتقمنا منهم فغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فرعون عجيسي وكان حتى ناقودي وكان حقيلي وحكير أنا أقول مقالة مصر بقرنمدي wax alla waxa mulkigeedii maalkeedii amarkeeda soo anu kuma amar taaglay iska mali soo ma jeedaan wabigan artayda marahay oo gurigeedii agaarkiisa dareerahay soo ma aragtaan am ana khayrun min hada alladhi huwa mahin nabi muusa han xaqiran oo faqri oo waxba haysan miya fiican mis ana fiican maana khayr badan mis kan xaqiran ba ma taqaana oo waxba haysan nabi muusa ba fiican فاستخف قومه فأطاعوه قوم كي سودوا سايون وراعي إلهي مركب محوكو سمي فانتقمنا منهم فقرقناهم أجمعين وأن كأرسني أو كأرجوني وأنا ماشيني بدنا كل حسيبيني وكهربني فجعلناه سلفا ومثلا للآخرين نار وأخر مرة بان كلمة وحي كتجانا بنادم وحي كل عبرقاتان وتشركيسي كم بدي هاي وهذا مصر يا الله سيدي لفتجيسي والله ضاو شطر oo binaanka ku cumar qaataan oo lagu saaqato lagu wantoona waa ka yeelay maalintii la halay ilaa hadda naar bay ku jiraan qiyaamo markii naar bay hore ka siyaadeen hadana qabriga ku cadaabayn fircawn intaas ku raxay abu jahl baan aadayna qodoonka ugu dambeeyay afraada macnaha wixii amarka ilaahay diiday abu jahl nabigana waa la colaytamay quraankana uu caayay dagaalkii uu ku dhintay badar asagoo wulisiin rasuulkii quraanka ilaahay ula dagaalamay إله كهذا يمرك معير قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون وعلويري أصلا وحورين شيء عزيز بنا هاي من قطرها أنا هاي أنا قريش قبيل في عنو قبيل بدر ربنا مخزون بكرة معاك هذا نما نوان كريم بنا مركز واحد ذق إنك أنت العزيز الكريم وهذا عزيز كريم شيئا تري بالنار تندم إن هذا waxaan hadda aad ku dhex jirtay cadaabkan waxaad ka shakisan markii adduunka la joogay way oo marka nabiga ku sheegay oran jirtay waxaan waa ka shakisan cadowtinimada Abu Jahl heerkaas gaarsan waxay ahayd reer bin Hashim iyo anagu waan tartanay haddaan bin Maqsuum nahay hadday gabyaal leeyihiin gabyaal baan leenahay hadday taajir leeyihiin taajir baan leenahay hadday nin mataqaan dagaalyahan leeyihiin dagaalyahan baan leenahay hadday nin codkar leeyihiin codkar baan leenahay hadday oday dhaqan leeyihiin oday dhaqan baan leenahay hadday boqor leeyihiin boqor baan leenahay laakiin hadda nabi la soo baxeen anagu marka nabi xagee ka keenayna waxa kaliya loo banaan inaan diidno wuu yiri marka maadaama nabi heli karin oo ogow hada Abu Jahl nabiga wuu raba asaga hadii nabi laga dhigo wuu rabi lahaa rasuulnimada wuu iska raba hadii aabihii walka laga dhigo wuu raba laakiin muxuu ka xasdahayaa nabi maxamed uu ka xasdahayaa nabinimada marka ninkaasna intaasaan kaga gudbaynaa marka Iblis iyo Yuhuud iyo Fircawn iyo ninka la yiraahdo Abu Jahl ba amar diido ilaahay laga amar diido ku halaagsamay oo cirad moodka naar jahannam noqdeen hal laga bayro Soomaaliya hal laga bayro banaanka hal laga maro dad badan oo Soomaaliya hadda waxa soo badanaya gaaloobahay munaafiqiin noqonaya ilaah inkiraya rasuulka ma taqaan inkiraya qodobkaasna intaasaan kaga gudbay qodobka ku xiga oo qodobka ugu dambeeya وعوي ذاتك حوض إله كذلك عابدان إله محوك قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون إلهي وحير بالكورن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قفك هويس إله كان بالكورن بإنه محمد صلى الله عليه وسلم وأضل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه أو إلهي أميي علم أوليه وقال إلهي أوليه وكل أميي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه مقل كيسي إيه قلبي لبضي ولا قد بولي إله ما كذب بولي وختم على سمعه وقلبه إلهي وحود بولي مقل كيسي إيه قلبي لبضي ولا قد بولي لقيه سنة وحب مقل مهيان وحق من مقل هيان قولك وكوشرا وشرقمها كلي موسيقى ومقل هيان يدنبي لكن القرآن يحق ما يله يسمن قلبي هنا ودبولي هاي خير بقي لما يحمان معنا وحخير قل ما هيان وجعل على بصره غشاوة أرجين وحقا أركن مهيا وحبا ما أنفع عيان إليه بلودي وكوشرا المشي وويناء ويشبوحني لكن حيالها كانوا واركا لكن حققوا ما وجعل على بصره غشاوة يا مركا هنونيك رقفكاس وإلهي كاه إلهي سأقول عيد هنونيك ارتمالوا وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي الله فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون إلهي مركو صاو قالي عيد كدب هنونيك ارتمال توي مركا وإن لغوانا قاتوي وحاوي مركا maxaa ka dhashay bini aadamka markuu hawadiisa raacay ilaahay caabud lahaana diiday oo hawees ilaahay ka dhigtay sida xaqa waxa uu ilaahay inuu raaco qofka bini aadamka laakiin waa la diiday kadibna hawa ilaah laga yeeshay hawadana yaa hogaamiye ibliis baa hogaamiye nafta hogaamisa shaydaan baa hogaamiye maxay markaa bini aadamkii markaas ay ku xijinayaan markii hawada caawdaan waxay ku xijin ilaahay inay caayaan waxay ku xijinayaan inay quraanka caayaan waxay ku xijinayaan rasuulka inay caayaan waxay ku xijinayaan sunnada nabiga inay diidaan waxay ku xijinayaan sunnada nabiga inay caayaan waxay ku xijinayaan saxaabada iyo xaaskii nabiga inay caayaan waxay ku xijinayaan taabiciinta inay caayaan waxay ku xijinayaan culimada rabbaaniinta inay caayaan waxaan soo qaadaynaa marka ninka la cali raage iyo kishka بل آيات القرآن إنما كان سيئو تفسيريا هي قرآن كبوس كيس انت كحيان بوس الله إني جيان بل يسوع قال تعالى وعلى الرابع الله على الرابع الحديدية وكاه الله يا قفك هدوس سينيستو وهرين نقول أصلا مري إلا دلو ودلح نقول دلو ديدنيا مركب وحو يريد أنا على الرابع وحنو أركا qofku hadduu guur soo maro oo haddana zino ku dhaco waxaan u arkaa buu yiri laba qof isku galmootay laakiin wuxuu yiri haddii joog laga dhigo in qofkii la doodax lagu dilo wuxuu yiri waa jirimi iyo dambi ka weyn buu yiri dambigu qofku galay oo inuu ma taqaan laba qof isku galmoodeen muxuu wax ku miisaamaya marka calraay waa aqligiisa aniga aqligayga waxay la tahay buu yiri dambigaas hore oo sinada in dhagax lagu dilo qofkii guur soo maray in jawaab looga dhigo qof in dhagax lagu dilo ba kadib weyn buu ku leeyahay qofka sinaystay oo sinada dambi yar buu arkaa laakiin in qofkii dhagax lagu dilo dambi weyn buu arkaa nafta la goynay wuxuu yiri waa nafka goyn weyn marka nafta in la gooyo dambi weyn buu asagu arkaa laakiin sinadan dambi weyn ma arkaa calraay muxuuna ku miisaamay miisaanka calraay oo waxa weey aqligiisa weey waa hawadiisa weey marka horana maxaa hadda u soo marnay aayad ilaahay ku cadeynay qofka hawadiisa raaca siduu u dhagala yahay
وقلبي لا يهي وين لا يهي محو سوقات مركو آيات أساس وكهدي أهنتا محو سوقات آيات القرآن بل ليسان آيات القرآن سوقات على الراجل محو يري wuxuu yiri marka waxay nagu leeyihiin markuu qofka dhax lagu dilahayo oo sinaystay waxay nagu leeyihiin buu yiri xadiis baa sheegay wuxuu yiri anagu waxaan quraan hayn ma ogin wax kale yeeli ma quraanka baa diin oo ah diinta ilaahay kaliya iska loo yiri muxuu soo daliishada marka aayad quraan ka saar قال تعالى فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي وحلم إذا مله يري وكاس ليس كمثله شيء دين ترى إلهي بس أسكار أسكار بس أنك قاضينا كتاب القرآن كا بان قاضينا سنة كمتشنوي نبي سنة منه يري من وعلى هاي وركي سيوي أسكار يري أصلا كسر حكت هذا دقيسته وعركيسه هذا قوم كبر كهذا دقيسته وحد يقول نقطة مرك عاد هذا وسوقته قيبته قدام بيسا أصلاً وحنا سمايا أصلاً ينين كان يرى عبد القادر كشكب وحيصل يبارك القرآن كهالله ورهبان آيات إني بوس كذي بوس عن إديان سيدتك وقلدان وحيصل ميان آيات شبجرة وكملة بيسوق عضليا أنت إذا كان وقت تجاهل أما آيات قيبت ظهر سوقاتين أما قيبت دحر سوقاتين أما قيبت مها سوقاتين آيات كهر يسكو شيء مايان متى كدم بيسكو شيء مايان آيات لفتي رمز يسكو شيء مايان شبجرة آيات بيسوق جينيان markaas ay waxay saarayaan hadana tafsiir hawadooda oo aan jirin oo wax kaga horreeyay aysan jirin bal marka aayadda hadda uu soo diriishaday aayadda ka horeysa baan tagayna waa haddii raage uu nin quraan ogol yahay qaala tacaala وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يغفر لما له مقاليد السماوات والأرض يغفر له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أنه يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إلى وحي هذا وحسكو قلافتان وما اختلفتم في شيء وما اختلفتم من شيء وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله هذا شيء اسكو خلافتان شيء اسكو حدو علسان حكم كيس إله علي وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله إله العلي على الراجل مقول هاي قرآن كإن له عليه قرآن وشجعنا هاي وليه أنا وان دي سنة النبي وان دي وليه هاي أو إجماع وان دي وليه هاي أو قياس وان دي وليه هاي قرآن كلفتي جيسة وليه هاي إلهي بقى إسكاله قرآن كسر كدين دجانا هاي مقول هاي لفتي جيسة بقى إلهي ليه قرآن كلوك على بحر إن قرآن كلوك على بحر مقول مثل ما أقوله مركي قرآن وشوق على مرهم بقاله يعني هويس وبلاوي يعني عدس maxaa ku xiga marka faadiru samawati wal ard wa ayadi au jabka ugu dambaysa ka soo qaatay way ayada ku xigta ilaahay muxuu ku leeyahay wax alla waxa ma taqaana ma oo dhan ilaahay baa iska leh ya qaslidiisa qofku rabana wax badan buu siiya qofku rabana waa ku ciriya maxaa ku xiga marka shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuuhan walladina
أوحينا إليك شرع لكم من الدين ما وصى به 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 نوحا والذي أوحينا إليك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلهي وحيري وسقط لها على الرجع الشريعة بقى أنا ما تقانا عن كل رقم من الدين تنو وكتاب القرآن وسقط شريعة إلهي وحيري الدين تنو وحوي مدى نبي نوح مدى أدر دارمي نبي محمد وحيودي ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى مدى النبي إبراهيم أدر دارمي نبي موسى أدر دارمي نبي عيسى أدر دارمي معاد هيستا نبي نوح أدر دارمي نبي نوح الله وحيودي نبي إبراهيم الله أدر دارمي نبي موسى الله أدر دارمي يا نبي عيسى أدر دارمي وعشان تقول العزم هذا عايدا المسؤولية نبي صلى الله عليه وسلم سيدو وكرام بدنيا هاي العزم ده وقدرة بدنيا هاي عايدا بكفها مثال أيها أفر توضيك نبي نوح يا نبي إبراهيم يا نبي موسى نبي عيسى وحلويل ووصينا نبي لما حلويل وكوب حيوناري شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أصلا وحي الله عبر سيد النبي إلهي أصرفي وأقولنا حريستي أفرشه ماشي النبي إذا كان نبي نوح نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى الله معناها لوغا دغه دردار يا امر ان السيد وكا waxa weeye marka diinta aan qaadanayna oo ku dhaqmayna waa diintii nabi nuux waa diintii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa diintii nabi ibraahim waa diintii nabi muuse waa diintii nabi ciise ayagana ilaahay u waxyooday adiga cali raah ilaahayna kuma waxyoodo rasuulna ma tihid diin adiga laga qaadan maayo هذا الدين كله قميصي وحاول الدين توقعس إله هذا النبي محمد القرآن كسب دشيء أسرع سنة كسب دشيء لبضن إلى الرع وواجب قرآن هو واجب حديث قدس هو واجب حديث كم تقنبس كله هاي أو ما تقنا إلهي وأسو وحي وشيء لكن نبي السيقان هذا الكأسو وصمينا هينا صدق الواسكم صدق وحي إلهي من الكلمة marka shariicada lagu dhaqmaayo waa kitaabka quraanka waa xadiis qudsiga waa xadiiska nabi inta nabi maxamed la yimid inta nabi maxamed jibril baa keenay inta ilaahay baa soo diray adigu marka inaad raacdaa laga raba maahan cali raago inaad hadda adigu shariicada diin cusub adigu noo dejiso oo na tiraa shariicadan raacayna waa quraan adigu quraan raacsanay oo ilaah raacsanay oo rasuul raacsanay وواحد نبي راح سنتا واحد نبي راح سنتا نجري وكا مركا أنا شريعة الدين تنو وطاس كان أدو شيء سماه وبنتي يوم تقانا هو ذا إلى إله كان يطور عادي وعم يقول بين النين كل اللي يراهدو عبد القادر كشك أصلا تفسيرها يا آية القرآن محلول الروائل وكاه الله وديدية هاي وديدية هاي قف قادو دين تكبحه إلى دول ديدين قف مسلم هذا دين تكبحه وعلى كله دين ما هذا ترى هذا محا ما تقانا أو أقول له ما تقانا للدين مهينا دليل بو كسرة أيضا بدلو لا أيضا بدلو كسرة بلا أنا يسمى إنسان تفسيره قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وكا وحيري إن الذين آمنوا أرسل لم يدري القف كان لم يدري هيو سبت وحلو دري كريموي إلهي وحيري كلها إن الذين آمنوا قفك حقهم ثم كفروا كدن وقالوا إلهي فصحي كلها قفك إنه ما تقانا مؤمن نقضها هدانا هدانوا قالوا واك إلهي فصحي كلها
ثم آمنوا هذا حق الرومين يركسون قريبا ثم كفروا هذا هو قالوا بيوم إلهي فسحبه هذا وكاس مسلم بوها وقالوا إلهي فسحبه كله هذا مؤمن من قضي هذا هو قالوا إلهي هذا فسحبه كله هاي آية دي مرك إلهي محوق دمري ثم ازدادوا كفر لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلهي وحير قدام بدافع مهايو كوا دقن كود ساسيها ومر إيمان شاغنايا مر قالوبيا هذانا إيمان شاغنايا هذانا قالوبيا هذانا قال لما كرسنا إلهي قدام بدافع مهايو لنا هنون مهايو ودا توصل لوه هنون مهايو واكو مرك كواس قال تعالى آية كحتوي بتفسيرها بشر الذين كفروا والمنافقين توي بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما منافقين تو واحد أقول بشارة سبيل الله يجري واحد أقول بشارة سا إن النار جهنم اللي يهين عذاب حموتية إن قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما عذاب حموتية ولا حوية إن اللي يهين أقول بشارة النبي قال له مرك أيضا واحد كهذا ليس ومنافقين تيوي وعبد الله ابن صول وأنك واحد لقى الله يوحي لما ده ونبي قال له وأفكر كشيء جنت إن مؤمنين كان قال لك أهاوي أسوأ محو كذا أو كتفسيرها يا قف هذا مؤمن كا إنه دين تكبحه إنه إلهي أفصحي إنه هذا وقال نقضه إنه إلهي أفصحي إنه هذا مؤمن نقضه إنه إلهي أفصحي هذا إنه قال نقضه وكا وبنتي اسمك وأسجى هوديسة روح عن شريموي وحلقها اللي وحي إلهي اللي هي مؤمن بشيغان هذا هو قولي والمنافقين تيوي وحيلا معناتها قال تعالى سورة المنافقون تدمرك هذا واحد شغلي آل عمران بتشغل آل عمران كتب سورة المنافقون معاك كتير قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وكا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا إيمان بيشاكتين كذن وقالوا به فطلع على قلوبهم قلب يقول الله حيار الله شوفي الوحبة الأولى شيء والله شروطي الحنبة الأولى شيء وحنا فاهم ما يعني على واحد فاهم يعني تاسي لما معناتها مرك آياته أسأل مرك القرآن كهويس وكتفسيرتا سبيل وتفسيرا وكاس وحول كلام سوقاته آية على رأي سوقات انتري وسورة كهف تتنو سوقات قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر آية أنا سيدي على رأي أدلي إلا لمن كانوا isku hal il bay ka soo qaataan hawshooda meel baa laga maamulaa isku hal xafiis baa laga maamulaa sida calraga aayadaha quraanka meel aysan jirin oo shaqo ku lahayn oo been ah uu tafsiiro ayuu ugu tafsiraa aayada kan soo qaato kan kale waa soo qaataan aayadahan way kala koobiyeen waxa way marka nimankaanu aayadaha jabka iyo soo qaadanayaan Soomaaliyeed waa aayada ay rabaan diintiina inay ma taqaan iimaankiina inay kaga cayaaraan أو أي إيمان كتشوش إذا كذا فلان شعاع إذا كذا فلان قلبي يني عقلي يني إيمانك إنك عيارا بها وحوي المركة أيوة أمورين واحد إله عاية لمن كان واحد قرآن عاية واحد نبي جديدة واحد ما تقال رسول النبي عاية واحد قرآن عاية أمورين بل قال لي النبي قال له ده يسمى كسي قرآن كي يربي عاية يا رسول يسموني صلى الله عليه وسلم وإذا تطلع عليهم آياتنا
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا من عندك هو الحق وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وحير هذا مركب القرآن كنيم كدو أخريه وحير هذا وما قال يشرب وحانو كان أنا وانه كرنا سانو كلا وحا شيء سو كلا وشيء كرنا أو قرآن كلا ومعناه وان سماي كرنا وقاعد كرنا وحان ضدك يهرب وحي شيء يشرين وين إن هذا إلا أساطير الأولين وضدك يهرب وتجي شيء كوين لما ذي أنت سنيك مركو يرهدين إله من الله هذين وحي يرهدين إله يوحدي وحان نبي محمد نور شيء القرآن كا يدين تان وشيء يحدي حقا كتمت أو شيء حقا أو حقا كيم هديت هاي وحي أنا حتى راح نوصل داري حضر تابنا عذاب وراح نوصل داري إلهي وأوجه وعير نبي محمد ولا أهرب إلهي هذا إذا عذاب ورحال يكوسوا دارين كون نبي محمد من شو نبي محمد إلهي وحصل داري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأنا حريص أصور أن صعدته عالم كلا صور داري قضب كلا وحوي أنت أدم تقانا استغفار الإيمان إنسان ودم بيقول كتب كذا إنسان وصوم مسلم إنسان إلهي عذاب الدنيا يكون كين ما هي حق صداد ما يوم قال لي القرآن كهذا يسمى كلام بالفيرة قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وحير هذا القرآن كما لوسو دجيب لبض أضي أو مكائية طائف ويلك كعب ما لوسو دجيب القرآن هذه القرآن بإلهي سود دجينه ويل كان أغونك أو رشاقا أو محمد محالة قال دون صلى الله عليه وسلم ما ولد إنه مقيرأيه عروب بن مسعود وهي ثقيفة ومقالة طائف وضيق يليئها مع اللواس متكل ما نبي لغنم آية كحيت إلهي وجهوا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا بريسكي يا باسدي يا روتي عنه يا لو أمين وين إلى قيبيان وهذا هدي إلهي متقانا أنت ربك ككنا وحلا وحي دول كسو بخا وشدال iyo macdan iyo mataqaana naq xoolo daaqan iyo barwaaqo hadii qof binaad loo dhiibo kaligiis iska qaadanahay adduunkaas oo aratay waxa barwaaqo ma ogola inuu qof wax ka siiyo hal shay bixin maayo hal baan ma ogola hal baan inuu dhiyo ma ogola marka waxa ay adinka binaadanka bariiska cunaysiin baan idin diidnay inaan mataqaawkiin kaga dhigno oo ana ilaaha roobka keena qof meeshu ka digay roobku uu daa beerku fashaa xoolihiisa u daaqa halkaas uu ka cunaa شدال الجوري صدوق كهو هالكاسو كقطع لكن قف وكيل إلهي ولا جماعة بركن يبنين محايد كبير شرو بركن هو حسد أي نبي حسده يوم لكن كله الرسول الله قال القرآن ودي شويه طبعا كله وحاول مركا قرآن هذا الجروب كان على الراجع قرآن على الراجع يا عبد السعيد ينك اللي يراه عبد القادر كشكا وح إله عاية قرآن عاية رسول عاية أو سنة جديدة أما عاية أما صحابة عاية أما صحابة درة أما حديث صحيح البخاري مسلم كويا له الشيخ الباني صحيحي الشيخ سيف عبد النور صحيحي الشيخ محمد حسان صحيحي كذب الله هي وكذب أمور معي حاول أيوة مهر هي وتشرشر أدون كي تكارتنا وتشرشر ولي بهذا الصومالي دون ويكون صوب بدنيا meelaha ay marka ku dhuntaan sidii ibliis ugu dhumay markuu nabi aadan la hadlayay oo lahaa waliga boqor baad ahaanaysaa waliga ma taqaanaa maal aan dhamaanin boqortooyo dhamaanin baad helaysaa mana dhimanaysid soo labadaas arrin ugu qiyaamay hadda maxay Soomaaliya ku beer duucsan oo ku qiyaamaan waxay dumarka gabdhaha waxay yiraahdaan madaxweyne maxalin kugu diidan yahay waad noqon kartaa masaajid imaam ka noqotaan waa maxalin kugu diidan yahay Soomaaliya way xaqiraysaa قليل من النقطات ومحكمات متقانة قرف النقطات محكمة
وحوي مركز دمر كصوماليات وحن الله هاي إله با إذا كشعل وإذا أبو طيب على الراي كحديث نبي محمد با إذا كشعل ورسولك إله يصدره كحل على الراي أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا صحابتي يا تابعينتي يا علماء ربانينتا وهذا النور أيها إذا كحل وإذا كشعل لمن كاسو حقي وكل حلال وضي إبليس بيكون عال وكسي اللي بالحسن هي هذا هيوي بيسيف فلان وحاول المركة يسا إذن كو قلدين صومالي با إذن كعدن بحيسة دين الإسلام كأي حقرتا حاول إلهي أساق أموري رجع أساق أموري دومر كان أساق أموري qof walbana ilaahay wuxuu u samaystay iyo xuquuq buu siiyay qof walba marka waa inuu ma taqaanaa uu ku qancaa sida ilaahay u abuuray waxa weeye marka labada ilaahay buu abuuray rag iyo dumarba waajibka iyo amarkana ilaahay waa wada siiyay qof walba tabartiisa taagtiisa intuu cibaadaysto ilaahay ka baqan weyn waxa lagu kala qiimo badan yahay waa alla ka baqida weyn قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب